waxyaabaha aadan ka ogeyn sadaqada. waxaa jeceshahay siirada nebigaaga Muxamed ah iyo dhacdooyinkii uu la kulmay inaad wax ka ogaatid. waxaa si aad ah u danaysaa inaad wax ka ogaato dhacdooyinka dhex maray isaga iyo dumarkiisa. taasna waxaa u sabab ah in guryaha ay isku mid yihiin, dadkuna ay isku mid yihiin. waxaa rabtaa noloshaada inaad uga dayato nebigaaga Muxamed ah adiga oo raacaya waddadiisa. waatan mid ka mid ah dhacdooyinkaas oo ka dhacday mid ka mid ah guryaha nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxaa kaaga sheekaynaysa hooyada Caaisha iyada oo ku leh nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin wuxuu gowracay ri. Caaisha ayuu amray inay sadaqayso, markaasna wuu iska baxay isaga oo soo indhaindhaynayo arrimaha muslimiinta, gaarsiinayana fariinta u wakiishay rabbigii. markii uu ku soo laabtay guriga, Caaisha ayuu ku yidhi, ridii maxaa ka haray? waxay tiri, garab ayaa ka haray. wuxuu yidhi markaas, waxaa sadaqaysay garabkii, waxaana inoo reebtay ridii inteeda kale. saxaabiyadda u fiirso jawaabtan qiimaha badan, garabkeeda oo keliya ayaa inoo haray. Caaisha waxay u sheegaysaa inay bixisay ridii oo dhan marka laga reebo garabkeeda. isaguna wuxuu u sheegayaa in sadaqadii ay weli u taalo. qof walba hantida way ka baxaysaa marka laga reebo hantida uu hormarsado aakhiro. hantida taalo agtaada adigu ma lihid, waxaa iska leh dukaanka adeega, kaalinta shidaalka, shirkadda korontada iyo isbitaalka iyo wixii la mid ah. hantidaada dhabta ah waa mid aad sadaqaysato ee aad dhigato alle agtiisa. hooyo Caaisha, garabka ay reebtay waa la cunay, laakiinse wixii ay sadaqaysay ayaa ah wixii u haray, waxaana lagu ilaalin doonaa bangi aakhiro ku yaallo. saxaabiyadda xaaskii Cabdullaahi bin Mascuud waxay ahayd naag hanti leh, isaguna wuxuu ahaa nin faqiir ah. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay maqashay nebiga sallallahu calayhi wasallam oo leh, dumarkii muslimiinta wax sadaqaysta xitaa haba noqdee waxaa isku qurxisaan, waayo waxaan arkay dadka ugu badan naarta inaad tihiin adinka. ninkeeda Cabdullaahi ayay ku tiri markaas, Cabdullaahiyo waxaa tahay nin aan waxba haysan, nebiguna wuxuu ina amray inaan wax sadaqaysanno. ee orod nebiga sallallahu calayhi wasallam soo weydii haddii aan adiga wax ku siiyo in waajibkaas uu iga dhacayo. wuxuu ku yidhi markaas, adiga soo weydii orod. waxay timid guriga nebiga sallallahu calayhi wasallam, balse albaabka ayaa waxay ku aragtay naag wado su'aasheeda oo kale. waxay garaaceen albaabka, waxaa u soo baxay Bilaal ayay u sheegeen su'aashii si uu nebiga sallallahu calayhi wasallam ugu soo weydiiyo. Bilaal ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, Zaynab iyo naag ansaaraad waxay ku weydiinayaan sadaqada inay ku bixin karaan nimankooda iyo in kale. wuxuu yidhi nebiga, Zaynabtee? wuxuu yidhi Bilaal, xaaska Cabdullaahi bin Mascuud. wuxuu yidhi markaas, waxay leeyihiin 2 ajir, ajirka qaraawo xiriirinta iyo ajirka sadaqada. ilaali adigana casharka uu ku siiyey nebigaaga Muxamed ah. sadaqada midda ugu weyn uguna qiimaha badan waa midda ku baxdo qaraabada. haddii aad tahay naag uu Allah subxaanahu wa tacaala siiyey hanti, ninkaaguna uu yahay faqiir, wax walbo aad siinayso waxay ku noqonayaan sadaqo. xitaa waxaa ku helaysaa 2 ajir, ajirka sadaqada iyo ajirka uu kugu sii jeclaanayo ninkaaga marka aad wax siiso. saxaabiyadda dumarkii nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay ahaayeen kuwa u tartamo sadaqada, ee adigana ku dayo oo ku dadaal. Zaynab bint Khusayma waxaa lagu magacaabi jiray hooyadii masaakiinta sadaqadeeda badan awgeed. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa la yaabay markaas, waa uuna guursaday. wax badan lama iisan joogin, waqti yar kadib ayay dhimatay, iyada oo heshay markaas 2 magac oo qiimo badan, hooyada mu'miniinta iyo hooyada masaakiinta. u fiirso ajirka sadaqada siduu Allah subxaanahu wa tacaala ugu siiyey adduunka, aakhiro intaan la gaarin ka hor. hantideeda oo dhan ayay ku caawin jirtay masaakiinta, niyaddana ugu dhisi jirtay. rabbiga naxariista badanna abaalkeeda wuxuu ka dhigay nebigiisa iyo xabiibkiisa inuu guursado. haddii uu qalbigaaga wax rabo, waxaas u mar waddada sadaqada. waqtiyada ugu badan ee la baryo Allah waa marka aad samayso wanaag iyo wax uu Rabbi jecel yahay. nebi muuse calayhi salaam wuxuu tegay Madyan isagoo isqarinaya oo cabsanayo. guri ma lahayn, xaas ma lahayn, shaqana ma uusan haysan. nin aan la aqoon oo kaligiis tagay meel tuulo ah cidna aysan ka aqoonin
ceel biyo ah ayaa wuxuu ku arkay rag arigooda waraabsanayo. Sidoo kale wuxuu arkay 2 dumar ah oo sugayo ceelka si ay xoolahooda u waraabsadaan. Nebi Muuse calayhi salaam ayaa u istaagay kaalmayntooda, xoolaha ayuu u waraabiyey. Kadibna wuxuu dib ugu laabtay geed har lahaa oo meesha ku yaalay. Rabbigii ayuu baryay oo wuxuu yidhi, Ilaahow waan ka baahanahay, waxaa ii soo dejisay. Maalintii iyadoon dhammaaninna wuxuu helay xaas, guri iyo shaqo. Haddii Allah subxaanahu wa tacaala ka rabto waxaa jeceshahay, adigana samee wuxuu jecel yahay Rabbiga. Mana jiro wax Alle agtiisa looga jecel badan yahay sadaqada, waayo addoommadiisa ayaa wax loogu qabanayaa, qalbigoodana waa la kabayaa. Saxaabiyada, adiguna noqo mid Alle dartii wax u qabato, adigana Alle ayaa garabkaaga noqonayo. Saxaabiyada, adiguna noqo mid Alle dartii wax u qabato, adigana Alle ayaa garabkaaga noqonayo.